السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسر لما أصحابتي تقالي ملك استوى دوك كجوكتان وولالكي مروكو أبوان مروكو هل كده جدا ونسانا ومروكو فيشان فضلا هدية تكون سبتها جانل كيجا حموغاني إن سبسكرايب صارتو لايك صارتو شير هذا كومنت إنها تكسب بحس بعد ما سنتين وحربا إن كهالله أرين عجيبة براه بالشدة قبستي حالي إلا يومانتا إن تاسو أهيد أولمبيكا أدونك ماراثونك أما tartanka orodka ee ka dhacday dalkaasi Japan waxaa kaalinta koowaad galay wiil Kenyan ah halka kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ay ku kala macnaha ay kala galeen wiilal Soomaaliyeed oo u kala tartamayay dalalka Netherlands iyo Belgiumka arinta cajiibka ah maxaa waay Nagay Abdi ayaa wuxuu sameeyay arin cajiib ah wuxuu gadaal u eegay Abdi Bashir oo soo daba ordaya iyo mid kale oo madow ah oo ka sii dambeeya balse wuxuu gacanta u haatiyay wiilkii Soomaaliga ah oo leeyahay nakeen soo dhaqaaq arintaasna waa arin macnaha cajiib ah Soomaalida meel kasta ay joogto aad bay isku jecel yihiin aad bay isugu weyn yihiin midba midka kale uu caawiyaa uu sameyn karo inuu iska aamuso ama hore uu isaga sii socdo balse ma uusan sameynin isagoo u tartamaya dalka Netherlands kaalinta labaadna sii galaya wuxuu kaalinta saddexaad la raadinayo walaalkiisa Soomaaliyeed ee u tartamay wadankaasi Belgiumka bal ila daawada videogan aad ku qiirada badan ay adduunka oo dhan wada qabsaday la wada hadal hayo hadii ay ahaan lahayd baraha bulshada oo dhan bal ila daawada videogan iyo waxyaabihii ay sameeyeen wiilasha Soomaaliyeed u kala tartamayay dalalka Netherlands iyo Belgiumka dhiigu ma ahan biyo balfiiri wuxuu eegayaa walaalkiisa Soomaaliyeed waka uu ka tagay kii Kenyanka ah wuxuu dib u eegay walaalkii wuxuu leeyahay soo dhaqaaq wuxuu siinayaa moraal si uu soo dhaqaaq walaal ilaa markii dambe uu awood ka helo dhiirigelinta walaalkii soo dhaqaaq walaal ugu dambeyn waa kuwa guuleystay kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kala qaatay waa video qiiradiisa wata xaqiiqiyan aniga aad baan ula dhacay videogan waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasto ay joogto ama Soomaalida meel kasto ay joogto gacanta isqabsada waxaan rajaynayaa in insha Allah taala sanadaha soo socdo anaga aan adduunka uga hormari doono insha Allah taala waxaa sidoo kale farxad inoo ah inaan macnaha ka soo muuqano Olombikada adduunka waliba Soomaalida sanadkani ka soo muuqatay Olombikada adduunka aad bay u badan yihiin waxaa jira Ali Iidow oo matalaya qarankeena Soomaaliyeed isagana Olombikada uu ka qayb galay orodka 5,000 sidoo kale waxaa jira wiil kale asagana oo u tartamay dalka Canada waxaan moodaa hadda dalalka shisheeye inay soo wada qaadanayaan ciyaartooydii Soomaaliyeed maanta haddii wadanka uu hagaagsanaan lahaa waxaa la heli lahaa ciyaartooy aad u tayo badan sida Nagay iyo Abdi Bashir oo kale marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala sanadaha soo socdo isbedel xoog leh inaan ka sameeyno sportiga Soomaaliyeed insha Allah taala aad baad mahadsantiin inta aan ku kulmi doono muuqaal lamid ah sida in nabadgeliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan hamogaanin inaad channelkayga subscribe saarto like saarto share dhahdo comment inaad ka soo bixiso Soomaaliyeed one love